dooda sida ku qoran casuumaadii aan idin soo dirnay waxa ku qoran dowladaha ku saabsan dhibaatada tahriibta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku aado dalalka dibadda cawaaqibka ka soo gaara ama dhibaatada ka soo gaartay qoysaska Soomaaliyeed waxa kale ku eegi doonaa xalka ugu dambeeya loo heli karo dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan su'aasha ama yaraadeen habkii socodka ee qulqulka dhalinyaradu waa sax way yaraadeen laakiin weli caqabadaha waalidka iyo qoysaska Soomaaliyeed ka haysta ama garaafooyinka ka soo gaaray kuwii hore ay jireen ayaa weli halkoodii taagan ugu horeyn waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdiweli Mire Xirsi si guud inuu barnaamijka inoogu daafuro wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka mid tahay wasaaradaha u dhuunduloola iyadoo wasaaradda dhalinyaradu hawlaha la xiriira dhalinyarada iyo axwaashooda horta barnaamijkan oo kale in la qabto iyo dhalinyarada iyo dalka oo dhan buu wuxuu u yahay dan sababtoo tahriibta meesha loo tahriibayo iyo meesha laga tahriibayo horta waxaa u fiican in la barbar dhigo xaggaad aadaysaa maxaa kaa horeeya maxaa kula kulmi doona caqabaduhu maxay yihiin faa'iidadu maxay tahay dhimasho ma ka imanaysaa kursi ma ka imanayaa dhaawac ma ka imanayaa waxaasoo dhan waxaan war ku hayaa Liibiya gabarba waxay istiri yaan lagu kursanin waxay tiri iyadoo waxba qabin waxay tiri waxay hayaa HIV AIDS وفي waa la yiri mid qaba halka noo jooga la yiri war waa been baa sheegay diisa waxaas ma jiraan baa kii baa lagu fasaxay waa dhibaatooyinka yani ugu waaweyn ee dhaca dowladda kii baa lagu fasaxay tahriibtu meesha aynu ka tahriibayno meel ka khayraad badan ama ka wanaag badan ma jirto xoolii baynu haysanaa baddi baynu haysanaa kalluunkii bari baynu haysanaa dalku wuxuu lahaan jiray warshado fara badan warshadii dharka warshadii kabaha warshadii haraga warshadii kalluumaysiga warshadii caanaha warshadii baastada warshadii maaragtay samayn jirtay weel maacuunta warshadii sigaarka iyo taraqa warshadii shida badan bay lahaan jirtay warshadii hubya rasaasta warshadii sokorta warshadii bariiska xitaa waa la soo bixi jirnay dalkeena nimca fadhida shaqo la'aan ma jirto laakiin activity-kii iyo isku dardarkii iyo isku imaashihii iyo fikir abuurkii iyo dhaqaale yari wixii qof ku dhaqaaqi lahaa baa jira iyadana waa la samayn karaa waxaan rabaa inaan gabdhaha ka soo bilaabo waxaan siinayaa Aamina oo cilmibaara ah BDRC-na ka tirsan horta arrinka la yiraahdo tahriibku waa dhibaato caalami ah ma aha dhibaato Soomaaliya kaliya ee ku dhacda waa dhibaato caalami ah waa dhibaato dadka tahriibaha hadii la yiraahdana inta badan dadka ku nool wadamada Afrika wadamada qalalaasaha iyo dhibaatooyinka ku dhacaan dad nolol raadinaya oo dib kulleeba noocay doonta aata dad dhibka cararaya oo nolol raadinaya weeyaan dadka tahriiba waxyaabaha ay ka dhaxlaan runtii aakhiro iyo adduunka labadaba dib baa laga dhaxlaa oo hadaad ku dhimatid adoo tahriibaya oo badda ku dhimatid aakhiro xisaabta ku dambaysa waa dareemi kartaa adduunka maxaad la kulmaysaa sida wasiirku sheegayay gabdhihii ayagoo magaalooyinka iyo nabadda iyo guryihii hooyadoodii aabahoodii ehelkooda jooga baxsan waayay markay u dambaxdo dhurwaayo meel walba taagan waxa ku dhici karaan dareemi karnaa dhalinyarada maskaxiyan waa la garaacayaa wala jir dilayaa maxaa ku dhici kara qofka dhalinyarada yurub markaad batagtay hadaaba ka noqotid inta yar oo tagta adoo nooceeyaa tagaysaa adoo traumatized ah oo maskaxiyan u dhintay oo weligaa yaalahan iloobaynin wadadaad soo madha iyo wixii aad kala soo kulantay baad yurub gaari doontaa waxa laga yaabaa yurub markaad gaadhid wuxuuba inaysan ahayn wixii lagu sheegay dhaldhalaalkiiba inuusan jirin inaad sharci weydid inaad rafaadid inaad mararka qaybtood waxa weeyaan dhalinyaradu ay darbi chief iska noqoto inuu nololba waayo uu isleeyahay waxaan aqaanaa dhalinyaro leh sidee ku soo noqda hal mar ayaa ugu soo celiyay meeshan ka tagay oo weyn ku soo noqdana la waxa weeyaan meeshiina iska badaaday wixii uu tagay inuu ka helo liban xog
ka badan bulshada baad haystaan dadka aad isu haystaan ama aad madaxda u tihiin waa dhalinyaro dadka ugu badan ee baxaya waa dhalinyaro wacyigelin nooca aad ka qaadataan intii aad shaqaynayseen iyo haddaba maxaase idinkaga qorshaysan qolqolka dhalinyarada Soomaaliyeed ee maalinba meel loo jiheynayo mar Liibiya loo jiheeyo mar Yemen loo jiheeyo mar Mareykan loo jiheeyo iyo marka la qiimeeyo idinkoo dhalinyaro kale oo idinla jaara ay waddanka ka yaacayso nooceeday maxay idin sawirmaa idinka kulankan waxaan jeclaa nin saaxiibkaya oo yurub u taariibay oo markii noloshiisu qabanayay wuxuu ka filayay markuu meesha u tagay uu soo waayay garow dib ugu soo noqday waa ka xumaan maanta inuu nagala soo qayb galaan jeclaa laakiin shaqo ku mashquulsanaa 3 sano markuu halkaa joogay noloshuu ka filayay ka waayay uu dib ugu soo noqday aniga waliba ka shakhsi ahaan saaxiibadayda taariibeen waliba dadkii ugu dhawaa qayb kamid ah waxay ku dhinteen baday ku dhinteen qayb kamid ah Yurub bay ku dhinteen aan daris ahayn qayb waa ku wareereen oo noloshii bay ka wareertay qayb kamid ah diin ahaan iyo noloshii asaasiga ahayd baa ka wareertay shaqadii iyo waxbarashadii iyo waxay rajaynayeen midna maysan helin waxyaabaha ugu yaabka badnaa waxaa kamid ah inaan saaxiibanahay taariibay wuxuu tagay Sweden iyo Germany buu soo maray mid kamid ah iska dhiibay ilmo yar buu sheegtay caruur baa lagu dhex daray kam waxa loo qabtay waqti uu seexanayo waqti wax cunayo waqti uu soo magaciisa gareynayo noloshii marka uu halka ka filayay inuu shaqo helayo waxbarasho helayo nolol ka doon helayo wuxuu dib u galay xabsi uu ka cararay waddanka lumsan iska dhiibay waddanka uu tagay waxa lagu khasbay luuqadiisa inuu barto qaxootiga ka dib u galo xitaa haddii Yurub tanbada la marayo lagu dhimanayo laga tago America iyo Canada baa ugu dambayso meelaha lagu taariibo iyadana nolosha laga filayay ma taal gabar baan garanayaa reer Garowe ahayd oo dhimatay oo saxaraha ku dhimatay waa gabadha aan arkay markay baxaysay xoogaa way cayileed waxaan ku yiri walaal ma iska waliba mar way ahayd waa la qabay ma iska joogtid baan ku yiri faraha ka qaadi oo meeshaadan joogtid waxay ugu tiri maya way iga go'an tahay inaan baxo gabadhaas saxaraha ku dhimatay baabuurkii baa wuxuu kaga halaabay qaaday meel saxaraha dhexdiisa ah inay lugeeyaan bay noqotay saxaraha ku dhimatay oo bay u dhimatay waxaan kaloo dhageysanayay markaan dadka sida ay u jecel yihiin oo dhalinyarada ma aqaan sidii qof dil ka baxsanaya oo kale gabar 60 qof oo dhintay ka soo badbaaday doon la dhacday Yemen u socday ka soo badbaaday oo tiri meediyaha ka hadlaysay oo ahayd 60 qof baa dhimatay waa markii saddexaad markii labaad aan soo badbaado haddana waan ku noqonaya heerka macnaha rabta dadka heerka iyo dhalinyaradu ay gaarsiisan tahay ka cararka dalka ninba boosaas aan ku arkaan ku iri dadka maxaa loo daadiyaa oo dooyaha looga daadiyaa oo qoliyaha badda ka shaqeeya ay uga daadiyaan marka ninka waa ragga dooyaha markaa ka shaqeeya wuxuu ugu yiri xuruful baxri waa la yiraahdaa waa sharci xuruful baxriga seesha maxamuud xuruful baxri sharciga xagee ku qoran yahay wuxuu yiri dadka badda ka shaqeeya oo gaadiidka badda wata haddii doonta dadku ku bato ama ay dhinac balance oo dhinac u ciiro oo khatar gasho doontaasi inta badan waa in la badbaadiyo oo inta ay ku badbaadayso badda in la dhigo way qoryo iyo baangabay wataan waa in la qabtaa dadka oo badda lagu tuuraa warbaahinta oo annaguna aan ka midnahay waxaa nagala joogta xogayaha ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP Nicmo Muuse Nicmo soo dhawow door bay warbaahintu ka qaadataa arrimahan wacyigelinta hadday noqoto iyo soo bandhigida laftigeeda xaqaa'iqa taariibka oo haddii faamilada laga taariibay la wareysanayo haddii ilmo taariibay laga warbixinayo haddii xog dooni dhacday ama xaalad dhimasho oo ka dhacday saxaraha meelo loo taariibo bal marka warbaahinta doorka ay qaadato wacyigelinta iyo weli inaan ku filnaanin xalkii bal wax ka dhex sida la wada qiray ama laga wada sheekeeyay tahriibtu waa afo caalamiya sidoo kale wadamada ay saamsay dalkeena ka mid ah maamul goboleedkeena cidda ugu badan oo nugulna waa dhalinyarteena duruufaha la sheegay loo qaxayo oo qofku uga baxayo xadka oo ka mid ah meesha ku nool nolol ka duwan doonto haday ahaan lahayd mid caafimaad raadinaya mid qoys baadi goobayo ama lamaana kala maqan hooyo ilmaheeda kala maqan oo kan kale isleeyahay u gudub ama hal noqoto qof sharci raadinayo oo ah kuwa nolol iyo shaqo haysta la sheegay inay tahriibaan iyaga isla sharciga ha idin shaqeeyo
sidoo kaleeto kuwa waxay raadinayaan dhaqaale shaqo la'aan baa la sheegayaa waa laga yaabaa duruufahaas oo dhan qaarkood inay wax ka jiraan aysan been ahayn laakiin waxa ka daran wadada la marayo wax lagala kulmaayo oo ah qofku markuu wadankii meel kale ka aado marka haddii aan soo noqon su'aasha ay weydiiso warbaahinta anaga kamaam ahaan ururka warbaahinta Puntland dhawaan waxaan bilownay program cusub oo dhaho maareynta musiibooyinka oo dawladaha la yiraahdo qaybo kala duwan ku jiraan dawladdu qayb ka tahay oo bulshada rayidka qayb ka tahay sidoo kale media qayb ka yihiin workshopkiisii hore induction-ka haweenkii la soo dhaafay ayaan halkan ku qabanay waxyaabihii dadka sayto loo diyaarinay waxa ka mid ah khatarta waxa dadka ku ah oo masiibooyinka haday ahaan lahayd tahriibka abaaraha markaas sayto abaaraha focus ka saareen laakiin hadda mawduucana maanta inta u fadhino qayb ka yahay aad baa uga hadalnay bulshadeena waa diicantahay dhibaato far badan baa ka jirta warbaahintu door weyn bay ku leedahay waxaan oo dhan gundhig bay u tahay barnaamijyada arrimaha bulshada oo nolosha dadka bini'aadamka taabanayo oo saameynta ku leh waxyaabaha ay warbaahintu asaasan tahay ka mid tahay inay wacyigelin ka samayso ama ka qaranto runtiina intaan ogahay telefishinada iyo raadiyaasha Puntland ku yaala in badan ayaan maaragtay arkayaba barnaamijyo ka sameynaya ama ka hadlaya walow aan isleeyahay heerkii loo baahnaa ma gaarsiisna tahriibta oo kale laba qaybood baan kala dhigi karnaa waqtigii 2018 wixii ka horeeyay waxaan dhigi karnaa dadku la kac ama laab la kac ay arkeen sawirada dibadda yaalo quruxda badan bay la tahriibeen laakiin se waqtigii ka dhameeyay oo hadda ay 2020 ku jiro dadku adoo og dhibaatada jirta Yurub ka jira ama Mareykanka jira tahriib baa meesha taala markaan saas oo kale leeyahay waxaan ognahay dadkii maanta qurbaha joogay inay wadankii dib ugu soo noqdeen inay shaqo ka soo raadsadaan qof wadankii jooga baasaboor ku lahaay oo ku dhashay markuu wadankaaga shaqo ka soo raadsado adigoo wadankii ku dhashay ku weynaado luqadii garanayo wax walba garanayo Soomaalidu waxay aad ka taaribtid dabcan waa caqabad meesha ku jirta iyaduna dadka role model-ka waxay dilka dhalinyarada u yihiin muraayadii ay iska daawanayeen markii maanta dadkii madaxda ah wadanka joogay qof walba ilmihiisa xaaskiisii oo qurbaha geysto wadamadan dariskeenna la waliba geysto oo yiraahdo Soomaaliya waa meel burbursan waxbarashada male ilmihii waa iga saaqidaya oo ilmihiisa tago ilmihii qofkii kale oo u jeeday dadka muraayada oo xilka u hayay ama model-ka ama ganacsiga u ahaa isna wuxuu dhahayaa hebel buu tago kaafi waxaystee taano wadankan iskaga tago albiis ama baasaboor soo qaado ama luqadii soo baro diiniyan iyo aqliyanba waxaan raadsanahay inay wax qaldan ku tahay qofka bini'aadanka ahi in naftiisa u bareeriyo halis noocaas oo tahriibtu ay ka mid tahay marka maxaad ku dar lahayd soo dhawow arrintan horta waxa laga hadlayaa tahriibtu dadku waa wax ay wada garanayaan aqliyan horta si fiican bay u wada fahamsan yihiin inay tahay dhibaato oo dhibaato xun tahay sharci ahaanna islaamkuna ma ogola qofku naftiisa inuu halaago oo naftiisa uu isagu halaago ama isdilo ama uu maxaa ku yiraahdaa dhibaato isku sameeyo ama uu naftiisa wax dhibaato ku sameeyo sharciguna ma ogola ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكتي نفتينا كردينا هلاك إذنكم نفتينا أصاب نقولنا هلاك كردينا مدة كلا وحال الرباء قفكو بين آذن كاه إنه ليه وحلي إلى قناعة ترتو إنه ليه قناعة ليه قناعة القناعة كيس لا ينفذ بليل قناعة قال الشذو وتاجرني ما أن كاد مانين مثلا وحويان waxa laga tagayaa ee laga cararayaa waa dalka laba qodob baa soo gali kara mar waxa jiraysa qofku uu مثلا amni xumo jirto oo la oran karo nabadgelyo ahaan buu u joogi kari waay sidii bacda awqaad waqtiyada qaar kood markii sagaashanaadkii iyo dhulka qaar way jirtay oo dadku ay isboosarada iyo waxyaalaha isku baxayeen oo nidaamku saas u jir oo nolosha markaa uu ku noolan kari waay laakiin dadkan tahriibaya iyagoo مثلا hadda tusaale ahaanba garow oo kale ka baxaya iyo meelaha la midka ah oo badda aadaya ee ku dhimanaya ee ku tagaya waxa weeyaan bimacna kelima sida aynu sheegnay waa khaldan yihiin arrintaasuna waa arrin khalada qofkuna waxa la rabaa inuu damac iyaakum wadamca fa inna damca faqru alxaadir baliir يعني
inaad sida u fakarto yani aad tiraahdo wax walba wax ka sii weyn raadi laakiin nolosha qofku haddii noloshiisu tahay wuxuu isu halaagi karo ama uu maxaan ku rahdaa uu deebad isugu tuuri karo ama uu naftiisa uu gelin karo dhibaato waxa weeyaan ma dhici karto. magacaygu waa Xamse Axmed Maxamuud runtii madaxa sharafta waa salaamaya wasiirka ugu horeeyo iyo SBC Maxamed Cabdalla runtii waa la isla qiray waxa kan inay masiibo tahay oo waxa weeye ay jidho sida hadda mas'uuliyiinta mid kamid oo sheegay waxa kan waxay soo bilaabtay ilaa 8-maadkii oo wadanka waxa ka jiray dawladda dictatoriya oo waxba laga ma qaban karin hadda oo wadanku federalism qaatay oo waxa weeye dimuqraadiyad loo gudbana waxa weeye wali wax laga ma qaban haddii la yiri qofkii iskuul buu soo dhigtay ilaa heer jaamacadeed buu gaaray oo waxa weeye markii uu yimina shaqo waa iyada waxbarashada laftarka caqabad ay ku yeelatay waxa kan oo qoysas badan ay ku cayroobeen oo ku hanti beeleen oo naf iyo maalba ay ku waayeen wixiina ilaa hadda continuous ay tahay oo sii socoto waxa kan masiibadan jidha xalkeedu muxuu noqon karaa su'aashaas weeye su'aashan qabo waana mahadsantiin. Okay magacaygu waa Hadan Cabdirasaaq Ciise aad baan u salaamayaa dhammaan dadka madasha jooga qof walba mansabkiisa iyo midgaha uu ku fadhiyo baan ku salaamayaa su'aashii horta in badan waxa ka jawaabay su'aashan qabay wasiirka ka jawaabay wasiirka ka jawaabay laakiin dhan kale baan ka istaagayaa in badan baa la sameeyay wacyigelin ku saabsan dhibaatada tahriibka waxaan oran karaa haba ugu badnaadeen waxyaabo laga soo duubo meelaha midgafayaasha oo dadkii ay maaragtay ku wacyi qaateen wacyigelintaas wax badan bay dhintay oo waxyaabaha yareeyay ka mid tahay haddana waxaa jira xidid kale oo u baahan in la siibo oo weli jira oo taagan oo hayaanka sabab u ah sida aan ognahay wadanka waxa dad kale ama shaqo u soo doontay shaqo yari kama jirto waa run wadanka shaqo yari kama jirto laakiin waxaa jirta xirfad xumo iyo tayada waxbarashada oo aad u liidata tusaale ahaan ingiriisiga cilmi la nooga dhigay ingiriisigu cilmi ma aha saan lagu qabo laakiin waa fududeeya wax badan buu fududeeyaa waa xirfad la barto waxa ka mid ah xirfadihii dhanka maaragtay gacanta oo dhan baa meeshii ka baxay iskuulaadkii iyo goobihii lagu baranayayna inta badan ma jiraan ama way yar yihiin haddii jiraan marka dawladda maxaa uga qorshaysan ilaan wiil korkii lama dhayee si xididkaa loo siibo in la tayeeyo oo maaragtay iskuulle xirfadeed ama maaragtay xirfado loo sameeyo xirfad abuur oo maaragtay dhalinyarada xagga loo jiheeyo xagga xirfadaha si shaqo abuur ay u sameystaan maxaa dawladda uga qorshaysan su'aashaasaan qabaa way gabadha ugu xigta bismillaahi raxmaani raxiim aad baan idin salaamayaa dhammaan banalka wasiir ku-xigeenka ugu horeeyo dhammaan agaasimayaasha kaleeto magacayga Maariya Salaax Xasan horta wax su'aal ama qabo wax yar commentiya ku darayaa sidoo sheegay agaasimuhu tahriibku wuxuu soo bilaabay dhamaadkii 70-yadii xilligaas horta ma aysan jirin baahi uu qofku wadanka uga baxayo laakiin waxaa jirtay qofku inuu xorriyad doonayo waxyaalaha loo tahriibo waxa ka mid ah qofku inuu xorriyad doono sida dhalinyarada oo kale inay waalidka ay caburiyaan in dhalinyaradu ilmihii ay caburiyaan oo ku caburiyo iyagoo leh tarbiyadeeya haddana ilmihii ugu fogaanayo uu dareemayo inuu caburin dareemo iyo bulshada oo kale si in la caburiyo oo kale xilligii dawladdii kalitaliska oo kale ay sameynaysa inay bulshada caburiso marka qofku wuxuu isku dayay inuu sameeyo meel xorriyad ku heli karo oo xorriyadiisa uu sameyn karo uu ugu baxo markaan isku dayay xagga xalku horta qofka dhalinyarada ah waa in lagu abuuraa wadan jacayl horta wadan jacaylkii baa inaga maqan inaga wadiiniyadii baa inaga maqan waayo qofku markuu ku haminayo wadan shisheeye inuu tago wadankiisi waxba uma arko ma keer garaynayo soo in wadan jacaylka horta lagu abuuraa qofkan wadiiniyada lagu abuuraa intan xalka ah oo bulshada waalidku waa inuu qayb ka qaataa inuu qofkan dhalinyarada ama ardayga ama ilmaha yar ee sabiga uu ku barbaariyo inuu wadankiisa baro hada matalan waxaa jiri karta qofka dhalinyarada garow ku dhashay 20 sano inuu garow ku soo gaaro garow meelna uma dhaafin يعني wuxuu dareemayaa inuu magaalada nacay oo kale wuxuu isku dayayaa inuu tahriibo marka inuu ilmihi la baro xiliyada fasaxa oo kale wadanka la baro wadanka la jeclaysiiyo oo maxaa dhahay meelaha quruxda badan ee wadanka la tuso ee la geeyo meelahaas oo kale dhanka dawladda marka xalkan ugu soo u gudbo dhanka dawladdu waa inay sameyso manhajka waxbarashada waa in lagu daraa farsamada
soo qofku marka manhajka lagu soo daro farsamada laguna dhiirigeliyo inay bartaan farsamada gacanta waxyaalaha technicalka ay shaqada qayb ka noqonaysa inuu qofku shaqo helo sidoo kale inay shaqo abuur u samayso dhalinyarada sidoo kale inay kor u qaado heerka wacyigelinta bulshada soo markaan Soomaaliya niraahno taariikhda wuxuu ka jiraa dunida saddexaad inta ugu badan uu ka jiro Afrika iyo Soomaaliya qayb ka tahay marka qofka dhalinyarada ah oo wadanka dhalinyarada markay ka baxdo waa faqran waa masiibo qofkii xoogii wadanku wuxuu ku tashtaa waa ilmaha qofkan dhalinyarada xoogiisa iyo aqligiisa markii xoogii uu wadanku ka baxo xoogii oo dhan baa wadanka ka baxay marka masiibo qaran bay noqonaysaa in qofka dhalinyarada ah waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in wadan jacayl qofka lagu abuuro soo waxay Soomaaliya dhacdaa in diya ka cararaysa waa la cishtaa laakiin dadka cararaya lama cishado marka qofkii waa in qulubtiisa horta lagu abuuraa wadanka inuu wadankan leeyahay inuu wax kasta uu ku samaysan karo markaas waa loo gudbi karaa istaabiyada kale aad baan waaya gabadha ku xigta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي أنكم بلا مجاعيجا وهاني قاسم عبد الله كسعطة هاي إنشاء مجاعيس فيها هايدي هالأبوركا هرمرين تدلني رضا هم بلا هدي أنو جذو جلوس سؤال ذا أما ما أنتوا دن برنامج كان كود هذيني أو فقرا أو شرطة أو سيبو وين سؤال عن وديني مضشة أما تذكر فديا maxaan ku raabaa banalka waxay tahay horta jaamacadaha dalka ka jira waxaan ogsoonahay inay soo saaraan dad ama aqoonyahan horta dawladda Puntland jaamacadaha dalka ka jira qoonda dadka la soo saarayo fursadahan ama waxyaalaha tahriibka keeni kara aniga fikir ahaantayda waxaan isdhihi karaa waxbarashada ama manhajyada aan dhigano oo xadad jaamacadaha waxaan ogsoonahay in ay dawladda jaamacaduhu yihiin wax private ah oo qof walba uu u furtay si uu lacag u raadinayo iyadoo aan la fiirinayn tayada ama dadka ka soo baxaya macnihii waxyaalaha ama bulshada waxay ku keenayaan waxa tira ma lahan cadad ama tira kuliyad walba waa wax furan marka dawladdeena Puntland ma uga qoondaysan tahay jaamacadaha Puntland ka dhisan in kuliyad walba ama kuliyadaha maqan sida fursad loogu helo kuliyadaha booska ka maqan in dadka lagu tababaro ma ka leedahay qoonda ah in dadka jaamacadaha kuliyad walba qoonda lagu galo taas waa su'aal su'aasha xigta waxay tahay sidee xal loogu heli karaa tahriibka dawladdeena awood intee la eg bay u leedahay ama qoonda intee la eg bay ku tala gashay in dadkeeda tahriibka iyadoo u jihaynaysa sida gabdhaha walaalahay ama dadkii ugu horeeyay sheegeen in dadka la baro horta yaa tahay adu waxa ogsoonahay dadkeena Soomaalida ah inay garanaynba anigu qof maan ahay anoo hadda dalka ku koray inta wax ku leekaaday haddana hadii waxa rasmiga oo dalku leeyahay wax laga weydiiyo kama jawaabi karo waayo laymaba barinba manhajkii ugu horeeyay oo lay baray waxa la iga sheekeynay taariikh dad kale leeyihiin iyo waxyaalo kale marka at least basically meesha laga soo baxaya in horta qofka Soomaali muxuu yahay muxuu u leeyahay xaq maxay tahay xaquu ka yimid horta waa in la baraa dadka waan salaamayaa anoo ilaalinaya waqtiga aad ma santahay kadana sinna kadib mubaanaka ku soo noqonaynaa xalka iyo waxaan u gudbi doonaa iyo su'aalaha la weydiiyay xirfadii farsamada gacanta iskooladoodu waa furan yihiin manhajkooduna waa diyaarsan yahay laakiin dadkii baa diiday ma rabaanba mid waxa laga sameeyay garowe وأساساً مدوا على جسمي قرمدوا على جسمي بلاش بالو قدي أنا يا سكست أنت اللي علي تدخل على قبرية أردني برال هيد وأنا وحي نبت أهانتي دتك ينوسو شقتي لقى صار لها دتك إن حرفت هذا نقف حرفت لما سكوا سعر كرتين هذا نقف حرفت لأنا كوبدلين أردني أما دليل هذا حد روح يربط قفك إنه كبل أبو وزير أسمه جود يحفيز دولتين بالحقيقة أرض يوحي وصابر توحد أرض باكوي منايا هذا وزارة بنشوجا وف باكوي منايا وحول الشغال ربع محبرة عافمات
يعني وزارة عافمات كشقيسة معها وزارة كشقيسة arrimaha gudaha iyo shaqooyinka dawladaha hoose iyo engineero kale waa nala shaqeeya dawladaha hoose ka shaqeeya human resource management waa nala shaqeeya qof finance soo bartay laakiin qof caafimaad soo bartay nalama xagee geynayna may waa la iska qaataayo buu ku oranayaa waa ina khasab ugu shaqo gelisaa ama xanaano xoolo soo bartay wuxuu ku leeyahay may iska daayo adigu waxa la isku xidha hadda qof walba ما يد وحي عصاب برتي وحنا هين بمشي يلا ما يعدي شغله يقول قرب كليه that's why قفكي وحي وصاب برتي economic مصاب برتي سما دقال صاب برتي وإنه هذه قابك دقاله وكو عبور هذا كان دقاله وسمي له كفكرة ومالها لقى عبور كرو دقاله هذا صاب برتي وحصاب برتي عافمات وإنه سيدي عافماتك وزارة كلية الله شغية ما أنت سو عسبتال باكر أنت سو عافمات باكر قفكاس حدا حتى بوحان وإنه يراها أنتو تروحوا يراها فري ما إنكو شغينا يا سو وصو صاروا حفرديسي أما وصو أبورو مركا دولدو قرشياشا وزارة وحبرشة وحن أوجهاي إن سكيلسكي فرسمدي قعنتا أي جيران manhajkiisii jiro silbiskiisii yaalo dadkii waxbari lahaa yaalo laakiin shacabkeena horta wuxuu yiri nin baa la yarnaagto ma ku leeyahay horta qalbiga ma ku haysaabay horta shacabkeena qalbiga ma ku hayaan in ay bartaan tahriibtu ka rabaa ama xafiiska inuu fariisto isoo caafimaad soo bartay uu rabaa inuu wasaaradda duulista hawada tago wasaaradda hawlaha guud tago macquulna ma aha de qof caafimaad soo barin qof badbaadiya loogu talagalay haddaan anoo xilligii dawladdii kacaankii nin wasiira waxaa loo soo magacaabay caafimaadka wuxuu war aan caafimaad markaa sarkaal buu ahaa waxaa lay baray buu yiri inaan dadka dalka difaaco wax dilo baa la soo basi wax loo dilaa lay baray meesha adaa lagu magacaabay baa lay wasaaradii bitay uu shiriyay dhaqaatiirtii iyo wixii digfeer buu tagay wuxuu yiri aniga waxaa lay baray in wax la dilo idinkana waxaa lay baray in wax badbaadisaan sida awgeed waxaan rabaa ilaa anigu ma aqaan idinku shaqadiina qabataan si wax loo badbaadiyo anigu ma aqaan ina idinku shaqada qabataan marka waxaan dadka ku wacyi gelinayaa in horta caruurtooda ay skillska u diraan ko dawladuna way ka go'an tahay in ay u samayso dhalinyarada waad ogtiin dawladda hadda jirta dhalinyarada u badan wasiirada waa aragteen dhalinyarada u badan yihiin taas waxaa keentay dhalinyarada waxay wada raadinaysaa in wasiir ka bilaabo hadhow dhalinyarada wasiirada noqday magaalada dib ugu noqonayaan ma ka shaqeynayaan shaqa caadi ma aadayaan gidaar buu soo fariisanaya waqtigiisii inuu dilo anoo odayaal baan hadda 60kii baan ku dhowna xaqiiq haddaan rabno jirkaygu si kale baa u ekaado oo aanu wax kale u ekaano dhalinyarada aanu ekaano laakiin waxaan sheegayaa dhalinyarada soddon jirka ah ee wasiirada noqday inayna biri dib ugu noqonayn shaqooyinkii la rabay inay qabtaan oo ay miiska soo fariisan doonaan oo shacabka oran doono hadda ninkaas wasiir buu ahaa isagoo meelaha iska lugeynaya waxaan ku boorinayaa dhalinyaradu inayna doonan technicalka doonta agaasima waxeediyada la taliyaasha agaasimaha guud xitaa uu noqon karo waa technical laakiin haddaa wasiir ama siyaasad ka bilowdid ugu in aadan dib ugu noqonayn meeshii aad joogto dhalinyarada oo dhan oo raadinaysa waxaan leeyahay iska daayo ka gudba shaqooyinkiina dalku waa jiraan hadda waxaan wadnaa annaga ka wasaarad ahaan dadka barakacayaasha la yiraahdo oo iska joogay barakacaha dadka dibadda ka yimi wuxuu kaga baxayaa sanad wuxuu kaga soo baxay in kaga yimi soo gobolada Soomaaliya dadka reer Puntland 6 bilood sharcigaas waa la ansixiyay waana jira waxaa kaloo jira in la rabo dadkan abaar baa timi hadda barnaamijkii anagoo wadna waxaan rabnaa qofkii beer raba in beer abuur loo sameeyo qofkii kalluumaysi raba in xeebta la dejiyo xeebta loo raro oo guryo looga sameeyo qorshayaasha socday wasaaradda arrimaha gudaha ay waday ahayd qofkii raba inuu xoolo dhaqasho ku noqdo in xoolo loo iibiyo oo dib xoolihii loogu iibiyo qorshayaashaas oo dhan ongoing bay ahaayeen laakiin dhibaatada hadda soo kordhay ee dagaalka Ukraine uu sameeyay ee dhaqaale xumo samartay ee abaartu keentay waxa weeye waa hakinay waxaan ugu talagalay kaadarka socda
la siiyo in loogu bedelo kaar oo dhan la jaro oo shaqo abuurka lagu sameeyo waxaasoo dhan waxyaalihii noo socday oo aan wadnay bay ahaayeen laakiin nasiib darro abaar baa ina ku timi dhalinyaraduna waa waxa looga faa'iideyn karto wasaaradda kalluumaysigu qorshahaas waxaa jirta inay iyana balaanka ay waday oo hadda waxaa la qaybiyey waa ogtihiin gobollada xeebaha ku oran waxaa la qaybiyey talaagado iyo shabakado iyo doonyo la dhigay oo ay iskaashatadu leedahay halkaas la dhigayaa kalluunkiiba ku urursanaya wasaaradda deegaanka waxay qortay dad deegaanka ka shaqeeya baabuur diyaarado warma diyaaradaha jiri jiray aynu baashas la dagaalano ayaxa waxaas shaqooyin la qabtay bay ahaayeen konton baabuur oo cabdibilayaal ah ayaa shaqaale la saaraya dalkoo dhan bay ka shaqeynayaan waxaad dhalinyaraa wadata ka soo baxday deegaanka ma baran badankoodu waa mid xanaano xoolaha soo bartay iyo mid managementiga soo bartay baa wada ardaydii baran lahayd raggii dadkii baran lahaa ma jiraan marka waxaan ku soo ururinayaa war dalkeena nimca fadhide hadda milxo dahabka laga guranayo Soomaaliya arag waxa dahab laga guranayo buurahan soo jeedo dhow ay wada dahab dalkeena soo marka ma aha inay barato macdantii soo barato oo ay barato technicalkii ay waxaan ku soo saari lahayn oo qofku uu noqon lahaa geology uu noqon lahaa ama petroleumka baran lahaa ama macdanta baran lahaa ma jirto nin u socda hooyadii aabii markuu leeyahay wiilaan dhalay waxaan damcaynayaa inuu aabe baro petroleumka baro ma caafimaad baan rabaa caafimaadka dadka waxba waa waayeen isku khilaafnay waxba hadda ma barto لأنه waxa uu doonayo waxba ka shaqeyn maayo suul xaggan u lahaa hawadu ka bax tiisi xitaa waa sii daayay waxa barta hadda marka arday waxba isku qafilayaa wiil dhalinyaradii tashiga waaridka ma siinayo ma oranayo waaridku waxa ku fiican waxaan oo mustaqbalka soo socda laga shaqeynayo waa dhulkeena waxa ku jira aad baa u mahadsantiin agaasimo deeqa soo dhawow waxaan ka soo bilaabaynaa oo aan rabno in ay solution-ka marka galaynaa maxaa xal u ah oo dhalinyarada dalkooda loogu dhiirigelin karaa ku hakan karaan haddii arrimihii kale laga hadla agaasimo aad wax ku daraysid oo ay wax kaaga bixeenna waad raacin kartaa soo dhawow haddii aan u gudbo xalka intaan xalka u gudbo horta waxaan inaan yar taabto dhalinyarada iyo maaha hanka ay ku jira iyo nidaamkay u shaqeynayaan qaabkay u shaqeynayaan horta wasaaradda dhalinyarada baa ku jira mandatekeeda waxay ka leedahay siyaasad bay leedahay youth policy ku dhaqada dhalinyarada hadda waxaa qorshaha yahay miiska saaran sanduuqa horumarinta dhalinyarada oo walba sanduuqaas in dowladda iyo hay'adaha stakeholderka ay ku shubaan lacag si lagu maalgeliyo hortaas waan ku bishaaraynaya insha allah sanduuqaas wuxuu saaran yahay miiska golaha ee hor yaalla in la dhameeyo maarta la baasgareyn waan rajeynaya insha allah dhalinyaradu xalka uu ku jira runtii dhalinyarada xalka isku bedeli lahaayeen ayuu ku jira waayo qofka dhalinyarada ah markuu dareemo dalkan inuu leeyahay abaayada waa ku mahadsantahay su-aasha ugu ahayd annaga laba dhigaba sinibis ama kili nolaba dhisan waxaan ku manhaj Soomaaliya loo dhigaa Suudaan iyo Suudaan iyo Carabaha loo dhigaa Masar Egypt loo dhigaa waa runtii ma la barin dhalinyarada lama barin citizenka inay noqdaan dad wadaniyiin waaga dowladda Soomaaliya waxaa nagu jirtay maadada wadaniyada waxaa la bari jiray dalkayaga hooyo iyo wuxuu yahay kalluunka qiimuhu leeyahay beeruhu qiimuhu leeyihiin dhulka qiimuhu leeyahay amniga qiimuhu leeyahay waxaasoo hadda lama bar dhalinyarada waxaa loo dhigaa waxbarasho waxay noqotay private dad baa gacanta ku haya dad baa iskale business ma noqoto ma aha waxbarasho leeyahay way maaha dowladda Soomaaliya ma laha dowladda ma laha marka waxay keenaysaa in dhalinyarada laftigooda ay lumiyaan kalsoonida dalka ay ku qabeen waayo ma haystaan dalkii aqoonta Soomaaliya ma haystaan ma aysan baran looma dhigin marka in la jooga waxay ku jiraan lama barin wuxuu ahaa dalkan macaankiisa lama barin taas waa mid la waxa wasaaraddan hadda ka socda anigu toddoba dhalinyaro waxaan barnay xirfadaha gacanta waxaa ku jira cooking-kii tie-dye-gii tailor-kii maxaan kuu sheegaa makaanigii electricity kulla ku jireen adigu waxaa la baray 7,000 oo dhalinyaro waxaa la baray xirfadda gacanta weliba bilaash baa lagu baray weliba lacag baan ku siinaa annagu wasaaraddeeda waa u qarantaa dhalinyarada waxay uga qarantaa hay'adaha caalamiga ah iyo cidda wada shaqaynta ay leeyihiin
waxaan ka soo helnaa mashaariicda ayaan dib u celinaa marka waftaa baa dhacay wasaaradda waxbarashada wasaaradda fakultiyada jaamacadaha macallimiinta jooga hogaamiya iyo jaamacadaha dadka iskale stakeholderka iskale waa wada fariisanay waxaanu iclaaminay oo isla qaadanay inaan sameyno secondary ah xirfadaha gacanta waa la daanfuray arbacada hore la daanfuray wasaaradda waxaa lagu daanfuray degmada baa lagu daanfuray 4 sano oo ah secondary oo ah xirfadaha gacanta in dhalinyaradu markay ka soo baxaan aydka dhaho haye ma waxa bilaabaysaa waxaan ku sheegaa 4 sano waxa baranaysaa secondary ah oo ah vertical oo macnaha skill vocation training mise waxbarashada tooska wadanaysaa si loo helo dhalinyaro xirfad leh aad iyo aad maartay barnaamijkan ugu hirgalay waa la daanfuray waana la bilaabay maalin weeytay waxaan sameynay 300 dhalinyaro ah ayaanu waxaan siinay kidkii ay ku shaqaysan lahaayeen waxaana siinay lacagtii ay ku maalgashan lahaayeen businesskooda markay xirfadda barteen waxa weeyaan runtii sida loo meesha shaqaysan wasaasaan ka hirgelinay 70 dhalinyaro ah waxaanu siinay waxaan ka dhignay group baan ka dhignay 4 koob dooro baan siinay groupkiiba oo 5 qof ah bisha lixaad baa la siiyay bisha afraad oo saadkii hore waa lagu noqday hal qof baa laga waayay marka dhalinyaradu runtii kuma jiraan fikir ah inay dalkooda qaraacaystaan ama ay ka shaqaystaan hadda aniga aan gabar baa ii timi maama ah xafiiska igu timi waxay tahay waxaan rabaa wiil ii geysay arday waxaan qaadanayay tashi aan qaadanayay ardaydi baan ugu daray wiilka dhalinyarada ahaa Suudaan buu ka yimi akoontii soo bartay reer baa maalgeliyay runtii oo ku soo tirata cabeelay 4 bilood buu qaadanayay tashi ah mashruuc waa dhamaaday waxaan bas barashada waa dhamaaday dib baa maamada u arkay xoolaha lacag la siinay dhalinyarada qaateen dib baa maamada u arkay waxay ugu tiri wiilkii wax kale igu soo raaday waa ii baaga mudawii waxaan ku shaqaynay manahay bay ugu tiri okay bakhaare laba ay leedahay labada bakhaarna waxa gaba niman Soomaaliya oo ka yimid koonfurta galbeed koonfurta baydhabo ka yimid waxaan ku wiilka akoontiga soo bartay xisaabta iyo maamulka bartay macnaha laba dhalinyaro shaqaale oo ay shaqa bixiye shaqada ma wiilka gaxti wiilka jaacad ka yimid dibadda oo waxaan marna qabto marka runtii waxa muuqata dhalinyaradu inaysan u bisnayn dalka inay ka shaqaystaan runtii shaqooyinka hadda hayaan ajaanibta hayaan waa isku dayayaan ka joojino dadkii shirkadaha iska lahaa waxay dhaheen noo keena dad xirfadii yaqaan anaga joojinayna anaga kharash ku qabna fiisay qabaan lacag bay qabaan lacag baan ku soo kaxaysanay haddaan loo keento dad siiti dhalinyaro ah Soomaaliyeed xirfadii yaqaan anaga joojinayna noo keena dadkii runtii waan weyn ninka xirfada leh oo guriga ku fiilada dadka ku gasha $400 qaato wasiirku ma qaato bardhay runtii marka dhalinyarada inay bartaan xirfadaha gacanta waan aad baan u boorinaya waana maarta jeclaa inay bartaan laakiin kama go'ona qofku raadaysa wax ay iska go'oreen oo kala inta u sakeenin wax walba ma khasbi karo dad baan ku khasbi karin waalid baan ku khasbi karin inagu ma khasbi qof wax ay ka go'an tahay aniga ila halaya wadada baa ii jooga tusaale ii soo qaadanaya qof waxa weeyaan dadka dhacdan ruuxa u sheego dhalinyarada idada dhigaysa dhamaantood labadii baa ii jooga mid jaamacad wuxuu aaday Hindiya markuu jaamacad sayniska dhameeyay idir Hindiya u diray kii kale wuxuu dalkan ka baranaya fa wuxuu bartay beesigu ka baxay soo beesigu wuxuu bartay dana tigna wuxuu bartay xirfadii gacanta wuxuu bartay korontadii kii 4 sano oo maqnaasada biyay runtii bay inay sheegnay isaga 4 sano biyay goortii kiinina uu shaqo muhiim oo iska fadhiyaa bagamodo isaga uu hadana iska gacanta ku haya marka dhalinyaradu waa inay xirfadda gacanta bartaan deerada inay bergaan qof soo saahlaba ma wax noqda dalka waa dawlad bartaan resources iska yar yahay kullu xafiis baa fariisan karo iyo wasaarad iyo hay'ad waxaan rabaa dalka halka marka halka wuxuu noqonayaa in koow dadkan qorshayaasha ay leeyihiin qorshayaal cadcad wasaaradda iyo cidda oo stakeholderka oo barnaamijyadan ku shaqaalaana inay ka shaqeeyaan in dhalinyarada la baro xirfadda lana maalgeliyo lana siiyo business ay ku shaqaystaan iyo ololaha hal abuurka kasan haddii loo maalgeliyo waa sanjay way agaas Cabdikariim baan siinayaa saala si fiican baa u dhageysanayseen dalka inta san burburin
wasiirkaasi fiican uga sheekeeyey wuxuu lahaa marka galaaska sideedaad laga baxo iskuullo secondariga u dhigma ama dugsiga sare u dhigma oo ay dadka marka laga baxo dadka ugu buunda sarreeya galaaska sideedaad ay galaan weliba buunda loo geli jiray haddana fiiri secondarigu la leebo lahaa secondariga marka laga baxo ayagana laga baxo afar sano looga baxayey qofka ama uu shaqaysan jiray ama jaamacad buu hore u sii wadan jiray oo iskoolaadka kaloo sekondariyada ama dugsiyada sare ah iyo isku duruuf ahaayeen ama shahaadadooda isku leebel ahayd waxaa ka mid ahaa iskoolkii xisaabaadkii cabiraadda geometriga la dhihi jiray waxaa ka mid ahaa dugsigii farsamada gacanta waxaa ka mid ahaa dugsigii badda waxaa ka mid ahaa dugsiga xanaanada xoolaha waxaa ka mid ahaa dugsigii dhirta iyo daaqa waxaa ka mid ahaa dugsiyo noocaasa oo fara badan yay ahaayeen oo qofka uu fursad u leeyahay ama xaq u leeyahay marka galaaska sideedaad uu ka baxo inuu abalaay gareeyo buundadiisa weliba asagoo ay ku xiran tahay halkaa waxaa ka soo bixi jiray marka dad badan baa ila jaamacadda lama wada helaya 3,000 oo arday 2,000 oo arday 1,000 arday la helaya inta jaamacadaha shamoobi inta ku soo harta kuwa dugsiyada sare ka soo baxa oo ay isku levelka yihiin kuwa dugsiyada kale oo farsamooyinka lagu baranayo ama culumta goonida lagu baranayo yaa waxay uga fursad badnaayeen shaqooyinka aniga marka waxaan aaminsanahay dhalinyarada waxba yaan la eedayn aniga haddaan carruurtayda iyo dhalinyaradayda eedeeyo waxaan waxay u baahan yihiin wax wada jir ah waalidka dowladda muxuu ahaaye hay-adaha ku shaqo leh shaqo abuurka dhalinyarada laftigooda oo ka qayb qaata haddii environmentigii la abuuro deegaankii wax laga bedelo istiraatiijiyaadkii boolicigii muxuu ahaaye waxbarashada wax laga bedelo waalidkuna ay maskaxdooda iyo dhalinyarada waalidkii isku xiran yihiin dhalinyarada ay qaabka fikirka maskaxdooda ay wax ka bedelaan in muxuu ahaaye arrintaas wax laga qaban karo waa mahadsantihiin waa mahadsan tahay halka anigu waxaan ku soo koobayaa number 1 ama kow dowladdu inay abuurto jawi rajo wanaagsan oo ku aadan mustaqbalka dhalinyarada tan labaad ganacsatadu inay dhiirigelin u sameeyaan dhalinyarada xoolaha kan cirka kamaysan keenin dadka ayay ka dhex abuureen inay dadkii ku celiyaan muujiyaan muwaadinnimo wadaniyad 3 bunuugta ama bangiyada ka jira dalka dadku ay leeyihiin inay maalgelin u sameeyaan dhalinyarada oo ku aadan mixnadaha ay soo barteen iyagoo ka dhimaya lacagta dulsaarka ah waan ogahay in 10% ama ka badan ay tahay taasina aysan u wanaagsanayn dhalinyarada ku cusub ama waayo aragga u ahayn shaqada loo maalgelinayo in laga dhimo lacagtaas taasi waa iga talo waa mahadsantihiin haddii aan xalka u imaado arrinka koowaad waxaan isleeyahay waxa koowaad loo baahan yahay horta waa in la helaa istiraatiijiyad dowladeed oo arrinkan ku wajahan iyada hagaysa cid walba ka shaqaysan halkaas ay raacayaan ilaa taas la helo dabcan dowladdu waxay u jirtaa inay dadka jihayso iyadu haddaan istiraatiijiyad dowladeed arrinkan jihaynaysa la helin waxba ma suurtoobayaan ardayga jaamacadaha ka soo baxa anigu jaamacadaha dalka dadka wax ku bartay baan ahaa ardayga jaamacadaha dalka ka soo baxa waxaan aaminsanahay wuxuu ka tayo badan yahay ardayga dibadda wax ku soo bartay arrinka labaad waxa weeyaan waa in la wajahaa dhinaca waxbarashada ardaygu markuu dugsi hoose dhiganayo haddii luuqadii muhiimadda ay yeelatay dee galaaska koowaad xadaanada ilaa secondariga iyo jaamacadaha aan luuqadda English ku dhigano Soomaaliga meesha laga saaro Carabigana meesha laga saaro ardayga isaga English iska baranayo haddii laga maarmi waayo waa inuu aragnay Englishku inuu yahay waxaan laga maarmaynin arrinka marka halkaas waxbarashada madaniga ah lagu daro syllabuska waxbarashada ardayga wadaniyada hal la baro isagoo og inuu yahay Soomaali wadanka quruxda badan ninkii lahaa baa dhistay gabadhii lahayd baa dhisatay saa u quruxsatay adiguna kaaga dhiso waxbarashada wali waxaan ku xirayaa arrinka jaamacadaha ardayda yaryari markay go'aansanayaan kulliyadda ay baranayaan inta badan ama loonaba soo diyaarin waarid lama tashadaan saaxiibadiisa kulliyadaas aaday buu u aadayaa
kamada fakarayo kaariyarkiisa mustaqbalka qofku markuu jaamacadda aadayo dhalinyarada waxa laga yaabaa oo 18 jirka secondary ka soo baxay kaariyarba kama fakarayo oo kama fakarayo business administration waxba ku helaysid kulliyada wax ku helaysaa ma fakarkaas ma laga rabaa inay diyaariyaan secondary markuu dhiganayo la rabaa inay macallimiintiisa iyo systemkaas u soo diyaariyo ardaygu inuu choice-ka saxda qaadan karo oo bari shaqada ku heli karo waxaad arkaysaa qof hadda in jaakada noo soo xiranayo wasiir iyo xildhibaan iyo xagga markuu tago waiter buu ahaa laakiin xagga wuxuu aqbalayaa inuu waiter yahay inuu darawal yahay halkaan markuu yimaado wuxuu rabaa inuu jaakatiinta ku soo xirto gabadhuna waa la mid ah inuu jaakatiinka gabadha soo xirato inay ku tiraahdo wasiir baana xildhibaan baana taas marka dalkaasba waad aqbasheena dhalinyaro maxaa idiin diiday inaad dalkan ogolaataan inaad kaga shaqaysaan waytarnimada arrinkaas wuxuu rabaa marka dhalinyaradu eed ma laha laakiin waxaa eedala in la baro oo la dareensiiyo oo wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhu sharciga shaqaalaha wixii shaqo ay qaban karto qof muwaadin Soomaaliyeed qaban karo in ma dhici karto in la waayo khasab waxa la helayaa hadii la diiyo inuu ajnabi qabto waa in la yiraahdo shaqadaas waxay u banaantahay Somali nationals markaas waa la khasbanaanaya in la helo cid dad baa ku dhiiranaya oranaya alla shaqada dhinacaas Soomaalida ay xiran tahay maxaan u baran weyna farsamada gacanta dii Soomaalida loo xiray dhiirigelin bay noqonaysaa laakiin hadii la yiraahdo war way diideen Soomaalida aynu keensan ajaanib guriyihii hadda dadkii Puntland u dhashay markay ka baxeen meesha dadka reer koonfurka waa guryaha dhisi jirtay hadda iyagina meesha waa laga saaray dad kale la keenay anuu ma filayo dadkaas ugu yaraan koonfurka iyo baadiye inay guryaha dhisaan laakiin sababo kala jira sababahaas aan ma sheegi karo hadda ma baarin laakiin kulay sababa jira ayagana shaqadii meesha looga saaray marka waxa la rabaa in la yiraahdo no shaqadan qof Soomaaliya qaban karo qof ajnabi ma qaban karo in intaas la oran karo shaqada marka la xayeysiinayo lagu xayeysiyo Somali national bay u furan tahay fursadaas in la oran karo arrinkaasna waa muhiim wasaaradda waxbarashada laftigeeda waxa la rabaa inaysan jaamacadaha ganacsiga loo furtay aysan ku sii dayn la yiraahdo wax kulliyadda caafimaadka sanadkan arday looma qaadan karo in wasaaradda awoodi karto kulliyadda beeraha ardaydu ha aado markuu ardaygu kulliyadda beeraha soo barto wuxuu u baahan yahay hadii suuqa lagu sii daayo maahna waa in shaqadii beeraha ay abuuran tahay oo beerihii jiraan oo ardayga ka shaqayn kara marka waxa waa chain isku xiran laakiin anigu waxaan aaminsanahay inteena kalena garbaan ugu noqonaynaa dawladana waxa la rabaa inay iyadu door ka qaadato dadkan iyada ka mas'uul ah iyaga u dhaartay wasaaradaha kala duwan wasaaradda shaqada shaqaalaha waa nala joogtaa wasaaradda shaqada dhalinyarada iyo dabcan iyada isku qaadatay wasaaradihii kale dhan baa jooga baarlamaankii dadkan wakiilka ka ahaa wasiirada la xisaabtamay lahaa meesha jooga oo dawsan marka inteena kalena garbaan u noqonaynaa anaga as research institution dabcan doorkayagu lagu noqonayaa waa inaan cilmi baaris sameeyno waan ka xumaa inaan hadda idin oranayn daraasadaas oo tahriibka ku saabsan baan sameeynay laakiin daraasado badan oo arrimaha dhalinyarada la xiriira iyo shaqo la'aanta iyo waxyaabahaas aan sameeynay dhinaca kalena dee wacyigelinta dadka iyo dhalinyarada inay systemka ka mid noqdaan ayadana door badan baan ka qaadanaa haddana diyaar baan u nahay inaanu aan door ka qaadano sidii dhalinyarada loo jahayn lahaa waxaan ku daba faylaynaa dabcan cidii loo wakiishay oo ah dawladda inay iyadu door ka qaadato annaguna aan garba ugu noqono assalaamu calaykum aad u mahadsantahay waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan mahadcelinayaa guud ahaan asxaabta halkan nala joogtay intaan waqtiga u helin fursadda su'aalaha aynan siinin iyo inta aragtiyaha iyo fikradaha nagu biiriyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Puntland Cabdiweli Miro Xirsi oo barnaamijkan nagala qayb galay agaasimaha waaxda kahortagga maraya iyo cudurrada faafa Dr. Cabdikariin Xuseen Xasan waxaan mahadcelinaynaa agaasimaha waaxda dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada shaqada iyo shaqaalaha Puntland oo barnaamijkan nagala qayb gashay Deeqa Jaamac Ciise liibaan maxamed حسين عفوا ودلة بيان قدامي عبد القادر محمد ورسامي أقاسمها SDO منها عبد القادر وعلم باركة BDRC إيو نعيم موسى ونحويها قودة وركسوحفين تبونتنا النماب نحسو كرم هالعلننا UNHCR إيو برامج TRS شيء جدا حقيقة تهريبتها يدباتي ده وبرامج كان قيب كاها